Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada ay leedahay dhiig-yaridu xilliga uurka. Haddaba waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha keeni karo inay dhiig la'aan noqoto gabadha iyo sidoo kale qaabka looga hortago in gabadhu ay dhiig la'aan noqoto. Gabadhu markay uur qaado jirkeeda waxaa ku imaado isbeddelo aad u weyn. Waxaa bato xaddiga dhiig ay jirka u baahan yahay boqolkiiba 20 ilaa 30. Sidoo kale waxaa bato baahida uu jirka u qabo macdanta iyo fitamiinada. Haddaba yaa khatar ugu jiro inay noqoto anemic ama dhiig. Waxaa khatar ugu jiro gabar mar dhow dhashay haddana mar kale uur qaaday. Sababtoo ah gabar markaas dhashay haddana uur qaaday dhibaatada leedahay waxaa ka mid ah in gabadhu ku imaadaan xanuuno badan sida walaaci, waxyaabihii badnaa inay ku imaadaan, cuntooyin badanna aysan qaadanaynin. Waxay keeni kartaa marka in gabadhu ay noqoto anemic. Sidoo kale waxaa keeni karo haddii aysan gabadhu wax qaadanin. Gabadhu haddaysan cuntooyin qaadanin ama cunto badan aysan qaadanin waxaa ku imaan karto in anemic ay noqoto. Waana midka ugu badan ee Soomaaliya markii la joogo aad noogu badan. Haddaba waxaa kaloo keeni kara in gabadhu ay tahay gabar dhiig badan ka baxo markii uu imaado caadada. Haddii aad tahay gabar dhiigeedu uu badan yahay xilliga caadada, dhiigaagu uu ka badan yahay dhiigga xaddiga loogu talagalay, ayadana waxay keeni kartaa in ay noqoto anemic. Sidoo kale gabadhu haddii aysan qaadanin fitamiinooyinkii loogu talagalay inay qaadato, ayadana waxay keeni kartaa inay noqoto gabadhu anemic. Haddaba sidee lagu ogaan karaa in qofku uu yahay anemic iyo in kale? Maxaan ku arkaynaa waa calaamado ah. Calaamada koowaad ee ku arkaynaa waxay tahay qofka wuxuu dareemi doonaa daal aad iyo aad u fara badan ama tabar dari. Waa calaamad ugu muhiimsan. Qofka waxay isku arki doontaa gabadh inay tahay gabar tabar daran, tabarteeduna yar tahay. Sidoo kale garaaca wadnaheeda aad ayuu u badan doonaa oo waxay dareemi doontaa garaac aad u badan. Sababtoo ah jirkeeda wuxuu isku dayayaa inuu soo saaro ama gaarsiiyo cunto ku filan jirka hooyadeed. Haddaba waxaa badan doona marka garaaca wadnaha ayaa badan doona. Sidoo kale gabadhu waxay isku arki doontaa naqaska oo ku dhaga ama naqaska oo dhiga. Waxaa kaloo ku arkaynaa in kalarkeeda uu isbedelo, sida indhaheeda haddii la fiiriyo inay ahaadaan caddaan, gacmaheeda sidoo kale kalarka inuu isbedelo. Haddaba waa maxay xalka ugu muhiimsan ee lagu xalin karo inay gabadhu noqoto anemic? Xalka ugu muhiimsan ee lagu xalin karo ama lagu daaweyn karo dhiig-yarida waxay tahay waxay tahay in gabadhu la siiyaa cuntooyin nafaqo leh, sida in la siiyaa beerka, kelida, sidoo kale cuntooyinka cagaaran, qudaarta cagaaran. Intaas waa inta ugu muhiimsan ee looga hortagi karo in gabadh ay noqoto anemic. Sidoo kale waxaa gabadhu qaadan doontaa daawooyin caawinaya in dhiigeeda kor u soo qaado. Waxaa ka mid ah daawooyinka la yiraahdo iron-ka iyo sidoo kale vitamins kale oo inta badan ay ka heli karto MCH-yada iyo isbitaalada qaar haddii uurkeeda uu bilaabay. Sidoo kale xalka kale ee lagu xalin karo in gabadhu anemic ay noqoto waxay tahay in gabadhu markasta ku xirnaato MCH ama isbitaal si markasta loo fiiriyo HB-geeda, hadduu hoos noqday, hadduu kor noqday, daawona loogu qoro. Haddaba waxaa ogaataa haddii anemic ama dhiig yari inta uurka leedahay la tacaashid in ilmaha aad dhali doonto naftirkooda ay dhibaato ku imaan doonaan. Tusaale ahaan inaad dhashid ilmo weydkooda ama culeyskooda uu yaryahay, in ilmo aan bila dhamaysanin ay imaadaan, waxyaabo badan ayaa imaan karo. Haddaba maxaa loogu baahan yahay gabadha? Waxaa loogu baahan yahay talooyinkaas inay qaadato, kuna xirnaato markasto isbitaal, HB-geedana markasta la kontaroolo. Sidoo kale inay qaadato daawooyinkaas iyo sidoo kale cuntooyinka. Cuntooyinka waa cuntooyinka ugu muhiimsan ee gabadha loogu baahan yahay inay qaadato. Waa cuntooyinka aan soo sheegnay. Waxaan rajeynayaa insha Allah in wax badan ka fahanteen. Wixii su'aalo ahna xagga commentiga noogu dhaafay insha Allah.